السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وولالكين عبد الله شيخ حنبلي وان إذن سلامي بهوين الصوماليات بلايوين كالسعودان الله النبال مريو انت لمتي الله أون حريستو انت حنون كان للي إذا تنا عافمات دقدقان إلهي أوي دينينا انت وصن كل عند الشر قدبا شيطان حجابا آفوين كان الله النبال مريو ولا ليال كلمة آد أقرح بدن naftaydana si gaar ah saameyn ugu yeelatay oo iga soo gaadhay fadiilada Sheikh Ahmed Abdisamad Allah xifdiye inkastoo sheekhu markuu kelmadda la wadaagay isaga lafsadiisa kelmadda uu ku tilmaamay inay tahay manquul ama mid uu meel ka soo minguuriyay luqadda carabiga ayay ahayd kelmaddii baan jeclaystay in aan idin Soomaaliyeeyo sheekha si gaar ah oo xiriiray si amaanada cilmiga aan ugu celina cidii kelmadda iska lahayd aan ugu ducayno laakiin sheekha تليفونكم ما آنن هلين كلمة دي أون دين سوماليين نواسدن هدي لو أوران لها لح بلاد كهر دولة دي وويناء كتر تمي جاريد الضيحة أيام ما أنت وحي كود دجال لما يان كجناع سجا استراشة أفكار لما مرصدا يورقدها مسقوش اللي جوجله مرة ما يصل لهاي هدي لو أوران لها دولة دي رير يوروب إنسانية دمال فك جاري ما أنت وحي تجويه كوسمينا يان دوم السده waxyaabahan musqulaha lagu galo iyo alcoholka la isku nadiifiyo hadeerta adduunka waxa ku soo badanaya kala dhac adduunka oo waa ka dambi weyn Mareykanka ayaa waxa lagu eedeynayay 2 casho ka hor in uu diyaarad u socotay dalka Faransiiska uu ka dhacay oo alaabaha la isku qafilo ama lagu gaashaanto siday haatana Faransiiska laftiisii ayaa ka rogo laba saar isla markaana alaabo loo diyaariyay in loo raro oo diyaarad lagu loo saaro dalalka Spain iyo Italia ayuu jidka u galay sida ay sheegayso shirkadda dhinaca caafimaadka ee dalka Switzerland laga leeyahay la yiraahdo Malinki marumaysan lahayd madaxweyne Trump oo siyaasadiisu ay ahayd in uu xidho gidaarna ku wareejiyo xuduudda u dhaxaysa dalkiisa iyo wadamada dariska la ah ee Latin America si aysan ugu soo badanin masaakiinta iyo qaxootigan yaacaya ayaa maanta wadamadii ka dalbanaya inay la soo gaaraan gargaar degdega gargaarkaasi waa maxay war warqadaana musqulaha ku galna nala soo gaara war waxaanu isku nadiifina nala soo gaara war waxaanu afka ku xirana nala soo gaara ayuu maanta dalbanaya ma kula tahay cidii doonaysa inay isdaawayso ay dibadda u aado isbitaal iyo isdaaweyn maanta meel ay aado inay garan laadahay ma kula tahay malaayiin dad inay maanta guryahooda ku qabiran yihiin aynan awoodin inay guryahooda ka baxaan ma kula tahay كعبدي ربي إن لحري والبابدا اللي يسوق رفتي مسجد الحرامنا عن لجوتو كانين مسجد النبي كان عن لجوتو كانين مقولاتها جمعة دي يا جماعوين كي إن لا تشوتشي مقولاتها صلاة جنازة ده إن أي أفراد يردد يرقون أو كوي جناز ميت كودية وناي كتو كدان مقولاتها مانتا ملايين يا مليارات قفين إسبوقين مقولاتها دورات يا مؤتمرات يا شرر يا إنتاس أو كلن وينه أما شر وينه إن ما أنت لبنادي أو ليس ما إيمان كرو العناية المركزة هي أجهزة التنفس الصناعي وقلب كان قفك اللجوء هو ذا أكسجين تسية مقولاتها هي ما أنت أما مرة ما يصير اللي حبلوت كور هدي اللي قرن لها وحي كقالي سيهين أما كقالي سنان دونان كان تعالى دجالك كور ردة الدحية كوا ردة الدوبة ama kuwa ridada dheer rumaysan lahayd arrinkaas mararka qaar in aad si qoto dheer wax u fahanto waxa ku diidaya sawir dhab ahaadan haysanin dareen dhab ahaadan haysanin hadaba hadalku meel buu isugu tagaahe ujeedada kelmadani waxa weeye ma dareentay hadalka rabbiga subhanahu azza wa jal ee ilaahay uu kuleeyahay adiga ee ilaahay uu leeyahay aadanaha oo dhan إلهي وكلها الله يقال يا مسلم با لا ملجأ من الله إلا إليه عيد إلهي اللي قم جنجلي كرو أو أن إسقاهين متشرته مدر أنتي مدد دميسي هذا الكرب قال سبحانه أرانا وما أوتيت من العلم إلا قليلا إن يرموغي علمي مخلوقات كلام السينين مدد دميسي هذا الكرب قال سبحانه أرانا وخلق الإنسان الضعيف ابن آدم كإسقا تبردرن أو تقدرن بالأبوري وحبنا معها مدر أنت هذا الكرب قال سبحانه وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله
waxay moodayaan dhufaysyada ay ku jiraan iyo dabaabaadka iyo diyaaradaha ay haystaan, baasaboorada ay haystaan, warshadaha ay haystaan inay ilaahay ka celinayso ayay moodayaan. ma dareentay hadalka rabbiga ee wamaa nursilu bilaayaati ilaa takhwiifa, ciqaabta iyo aayadaha iyo aafooyinka aanu ku soo daynayno waa cabsigelin iyo xusuusin. ma dareentay hadalkaas? kelmadii aan rabay inaan idiin soomaaliyey intaasay ku idishahay, waxaanan ku darayaa qaala allahu tabaaraka wa tacaala alam ya'ni liladiina aamanuu an takhshaca quluubuhum lidikri illaah. miyaan la gaadhin xilligii quluubtu la doonayay quluubtu inay ilaahay u jilicdo, u khushuucdo, ilaahay aayaadkiisa aan fahanno, awaamirta ilaahay aan fahanno. sawirka hadda aayadaha aan idiin sheegay ama aayadahaasi naloo soo gudbiyey maanta miyaynan fariin cad ina siinaynin ibni aadamku inuusan waxba ahayn? yaa cabdallah yaa amatallah, waxba ha ku kasoomin dadkan adduunyada ku qooqay, cusaadan badan ee adduunyada joogta iyo dadkan awaamirta ilaahay khilaafaya. adiga ilaahay waad la kulmi doontaa, god baana lagu kelin keligaa, ilaahay baadna hor istaagi doontaa subxaanahu wa tacaala. intaa usii shaqayso hor istaagidda ilaahay, waxaadna ku gaari kartaa hor istaagidda ilaahay inaad naftaadu waxa ay rabta aad ka celiso oo aad ku qasabto kuna laylido cibaadada ilaahay. ilaahay wuxuu jecel yahay wa amaa man khaafa maqaama rabbihi wanaha nafsa cani ilhawa fa ina aljannata hiya alma'wa. ilaahay subxaanahu wa tacaala khayrka hana waafajiyo. ilaahay subxaanahu wa tacaala khaatumadeenna khayr ha ku khatimo. allah subxaanahu wa tacaala hana waafajiyo waxa uu jecel yahay raallina uu ka yahay. allahuma wafiqna lima tuxibuhu wa tardaa.